maanta ayaa israsaaseyn xooggan waxay ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa kadib markii koox ku xireed xabsiga ay qorihii la qabsadeen rag ka tirsan ilaalada xabsigaasi kadib ay halkaasi waxa ka dhacay israsaaseyn shaqaqad aad u xooggan oo soo gaartay ilaa galabnimadii maanta wariyaal badan oo ku sugnaa magaalada ayaa qaarkood jeelka loo taxaabay kadib markii laga qaatay kaamirooyinka ay wax ku duubayeen haddaba waa sidee xalka guud ee magaaladaasi ayaan idinku faaqidi doonaa ee ku soo dhawaada ilaantiinba barnaamijkan kooban ee haatan aan ugu warrami doono dhacdadii maanta ka dhacday magaaladaasi Hargeysa ee ismaamulkaasi Somaliland run ahaantii intay soo wariyeen wariyaasha idaacadaha caalamiga oo ka soo warramay gudaha magaaladaasi ayaa sheegay inay ku bilaabatay arrinta shaqaaqad kadib dhaxmartay rag ka tirsan dad ku xiran xabsiga ayagoona sheegeen nin horey wacay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo halkaasi ku xiraa inay ka codsadeen qaar kamid ah maxaabiista in laga dhax saaro ninkaasi kadibna ay ciidamadii dhagaha ka fariisteen kadib ayaa raggii waxa ay jirdil baahsan u geysteen ninkii xabsiga ku xiraa kadibna waxa soo gurmaday ciidamadii dawladda oo arinta xalin rabay kadibna halkaasi ayuu ka dhashay khilaafka ee dhaxmaray halka ayaa waxa ka dhashay in maxaabiistii gabi ahaanba halka ku xiraa ay faraha ka baxsan qaarkoodna ay xanaaqaan halkaasina uu ka dhasho iskoorimaad aad u xooggan oo soo gaaray ilaa ay galabnimadii maanta haddaba barnaamijyadii ku soo kordhay ayaan halkaadii ku soo gudbin doonaa ilaantiinba aad u mahadsantihiin daawadayaasha iyo barnaamijyada halkan inagula xiran waad mahadsantihiin